ninka fircawn in aad u talaxun buu ahaa suu u sii socday naartii buu dalqsiiyey reerkiis kanna suu u sii socday laftina gaab dalqsiiyey aan ku bilownay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa si adag uga hadlay damaca dowladda Itoobiya isagoo fariin culus u diray shacabka ku nool deegaanada waqooyiga Soomaaliya ee loo yaqaan Somaliland. Ra'iisul wasaaraha ayaa weerar culus wuxuu ku qaaday madaxda Somaliland oo ugu horeeyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi isagoo ugu yeeray fircoonka qarniga. Xamse Cabdi Barre ayaa ugu baaqay walaalaha Soomaaliyeed ee gobolada waqooyi ee Somaliland inay u istaagaan difaaca dalkooda ayna u midoobaan qadiyadda ka dhanka ah in dhul Soomaaliyeed la siiyo dowladda Itoobiya. Ra'iisul wasaaraha ayaa hadalkan waxa uu ka sheegay munaasabad lagu xusayay sanad guuradii 25aad ee asaaska dalladda waxbarashada ee FBNS. Sidoo kale waxa uu ballan qaaday in xukuumadda danqaran ay ahmiyad weyn siin doonto horumarinta waxbarashada dalka. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa aad u weeraray madaxda Somaliland isagoo oo sheegay inay Oromo ay u galeen waxaana sheegay in ay ka carreen Soomaalinimadii. Ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo soo daliishaday aayad Qur'aan ah ayaa sheegay in Fircoon uu hadda ka hor halaag uu ku hogaamiyay dadkii qaadan jiray amaradiisa. sidoo kale ra'iisul wasaaraha ayaa shacabka gobolada waqooyi uga mahadceliyay sidii ay u diideen in dhulkooda la bixiyo. dhinaca kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa waxa uu Itoobiya uga digay damaca ay ku raadinayso dhul Soomaaliyeed wuxuuna cadeeyay intaasi aysan dhici doonin isagoo oo wacad ku maray in sharciga haddii ay u hoggaansami weydo Itoobiya in Soomaalidu ay gacanta ula tagi doonto. odayaashii say u sii socdeen mahalka idinku rideen waa u jeedaan meesha idinka tuureen haadaan bay idinka tuureen say u sii socdeen waxay idin yiraahdeen waan khaldanayna Soomaaliya maynaan ahayn Oromo maan ahayn lafti nagaa meeshaas horta idin bilaabay say u sii socdeen jinsiyadiinii iyo nasabnimadiinii iyo qurayshnimadiinii iyo duriyadnimadiinii horta cagta mariyeen mar koobaad way idin nasakheen talaabada xigtana waxay yiraahdeen dhulkii waan dhiibnay khalaas adisamaan tagnay way soo saxiixeen dhulkii aad diideen in isticmaalkii caddaa dumarkiisu ay ku dhalaan iska dhaaf inay ku noolaadaan inay ku dhalaan oo ilmo lagu dhala aad diideen inta tageen ay soo saxiixeen waxaanu soo xasuustay quraanka ilaahay أنا ده فرعون دي ماي لكن وحنو سو قادنا يا مثال قرآن كإلهي مركو إلهي قرآن صدري فرعون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد نك فرعون تلحم بها مركا أمر فرعون تلحم بها يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود سو سي سعودي نارتي بدلقسي ريركيس ومدح وسيها كان سو سي سعودي حقي وقي سو سي سعودي لفتي النقاء بدلقسي هو يسوي اكتر سو سعودي وحال سو غاري ماشي aad iskaga xari lahaydeen marka odayaashaas ka xara odayaashaas waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed reer Somaliland dhalinyarada gabdhaha waa mahad celinaynaa xaqiiqatan waxaan ugu mahad celinayaa sida geesinimada leh runta leh run u sheeg leh wadaniyada leh Soomaalinimada leh ay waxa ay soo diideen inta yar ee wali ku katoon waxaan leeyahay war meeshu idin gaarsiiyay waad aragteen iskaga xaran nimankaas